hooyada waxay xiran tahay muddo 3 sano hagbaday ururin jirtaa ku gooday xaalad adag baan ku jirnaade caruurta markuu roobku doo waa laga guraa caruurta guriga waxa la geeyaa guryaha jaarka marka waxay cunayaana dee jaarkaasba wixii qof walba awoodayo uu ku caawiyaa karaankiisa uu siiyaa waxay ku jireen nolol haboon oo iftiin ay u tahay hooyado balse isbeddelka waqtiga oo aan cidina saadaalin karin ayaa waxa uu sabab u noqday inay wajahaan culaysyada nolosha ayagoo da'yar kadib markii hooyadood loo xidhay deen lagu yeeshay haddana ay xabsiga ku jirto muddo 3 sano ah hooyo la'aan dayac iyo daryeel la'aan ayaa isu biirsaday ay u dheetahay sabinimo aanu garaadkoodu ku filnayn marka laga reebo guddoon curadda xaafadda oo iyada waqtigu baray inay ka booddo marxaladdii carruurnimo booskii hooyanimana ay u gasho walaalaheeda yaryar magacaygu guddoon maxamed faarax hooyada waxay xiran tahay muddo 3 sano hagbaday ururin jirtaa ku gooday wallaahi xaalad adag baan ku jirnaade dabeeta markuu roobku da'aan saas ma guriga u dhex taaganahay oo daadkaan noo soo gala guriga dawakaad xagaad ka heshaan masaariifta iyo waxyaaba sida cuntada oo kale iyo baahiyaha kale u baahan tahay xaafadaha jaarku ma naga caawiyay cuntada iyo waxaas iyagunba noo keenkeena noloshan walaa ku nool waa nolol iska adag baan wallaahi ku noolahay dabeeta 6 ciyaalanahay iyo abtiga iyo ayeedii baa nala jooga dabeeta waxa cuntadana xagga xaafadahan baa naga caawiya oo noo keenkeena adu curadii baa haa aniga curadii baan ahay dadweyne fara badan oo ina daawanay maxaad ka codsanaysaa waxaan ka codsanayaa inay soo caawiyaan hooyada jeelka nooga soo daayeen wallaahi meesha 3 sano ku xiran tahay sano ku noolayna Ilaahay baa og waa xaalad adag oo qalafsan sawirna ka bixinaysa xanuunka ay leedahay hooyo ka xidhan carruurteedii iyo waxa weeyaan reerkan waa reer ka dhibaataysan arkaysaa gabadhna awlaadeedana iyada la sida jirtay kiray geli jirtay iskuul bay ka bixin jirtay madrasad bay ka bixin jirtay tukaan yar oo halkan ku yaala imiga ayaaba tukaan xaafadeed ay dhigatay hagbad weyn oo suuq habeenkii u baxday ka soo urursana way hayn jirtay gabadhaas hagbada ilaa muddo 14 sano 13 sano haysay tukaanka muddo 2 sano haysatay dhibtan waxa u soo duway tukaanka xoolaha Allah hadaad ku furanin hami u baageliyo haysto intan awlaad isku beeri hamigi waxa noqday tukaan xaafadeed amaadi soo badatay waxa la saaray waa wax kiru wahayo $100 bay waxaan ku kiradiisu wahayd leyd baa jira waxaan ku gabadhii saysa wuxuu ugu dhex jirtay ayuun bay hagbadii gacanta u dambeysay hagbad weyn hagbada in badan bay manaafacaatay amba in badan bay awlaad ku soo korsatay dhibti waxa deedna waxa dhacday inay wixii soo gaabteen tii u dambeysay hagbadii iska dhex deedna dadkii hagbadii ku lahaa ay xidheen sidii ay reerkii kaga xiran tahay 3 sanadood waliba ay ma ahan ubadka mooyee ayadu aanay waliba jaar iyo eheltooda aanay gargaarka helin ay sidii ugu xiran tahay halka marka waxa weeyaan Ilaahay baa cadeed la bixiyay Ilaahay baa inkaan soo diray waxaad u qaban kartaan oo inaad u qabataan baan doonaynaa awlaadii ayadaba xaalka awlaada yaryar muslimka ay jaarka ku xidhan ehelo waxba ma qabto arqabka la meel uga ma yimaado muslimka ay dhex yaalaan ayuun ba maanta iskuul lama dhigtaan madrasad lama dhigtaan karay gal jireen karada taxasana ma gelin guri kireebay walaashay gali jirtay haday gali jirtay in guriga karada markii iyada la xidhay way ka baxday runtii waa laga saaray buulka inaad aragteen ugu tagteen reer baa tuur ku siiyay meesha oo dajiyay waxaan ku orodin kaas oo aragteen weeyaan idinku ba arkayseen in dhiina ku hayseen ayaa awlaaduna ku noolad umada Ilaahay dhulka taala ee jaarka ayun bay carruurtaas ku dhex nooleen anaga aan ku dhaamo ma jirto anigu qof miiga soo guurtay baan xooliinta ka baxeen magaalada iska soo gashay qoyskaasi jaarkoogan nahay gabadhaan waan garanaynaa gabadhaasi bakhaaro iyo hagbado iyo ururin jirtay ubadkeega ayada ayaa u tafalaqsan jirtay marka adeyntii way ku gooday 3 sanadoodna way xiran tahay noloshooda aad bay u adag tahay waad arkaysaan buulka ay ku jiraan daadku 4 koonu ka maraa carruurta markuu roobku doo waa laga guraa carruurta guriga waxa la geeyaa guryaha jaarka marka waxay cunayaana dee jaarkaasba wixii qof walba awoodayo uu ku caawiyaa karaankiisa uu siiyaa marka carruurta wallaahi qoyska dhibaato aad u adag baa haysata gabadhaana muslimiinta Soomaaliyeed waxaan u farayaa gabadhaasi marka u horeysa in jeelka carruurta Soomaaliyeed ee halka ku tacabsan in hooyada looga soo daadeynta laga soo bixiyo wixii dee guriga ku caawin kara wuxuu qaban karaan ay u qabtaan badan oo telefishinka uu ka wardoonay xaaladda dhabta ay ku sugan yihiin qoyskan dayarta isla markaana hooyadood ay muddada 3 sano ka xidhan tahay waxaanu cagta soo dhignay galab rooban oo raxmaadka ee badaayo
islamarkaasina dadyowga jaarku ay u tafaxaydinayaan in carruurtan sabiyada ay ka guraan halkan waxaanay badankoodu ii sheegeen in wakhtiyada roobaadka ay carruurta yar ka daadgurayaan xaafadda si ay uga badbaadaan daadka oo 4 koonaba ka mara maadaama buulkan yar ee ay ku jiraan uu ku yaalo goob laaga oo biyo mareena